السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي هبون daawadayaasha qiimaha badan meel kasto aad naga daawanaysaan waqti kasto ay idin tahay fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir alaaba waxaanu qabanaa barnaamijyo dhaqana suugaan ah sooyaalkii Soomaalida iyo waliba dhiirigelinta bulshada mar labaad iyo barnaamij xiiso badan garabkayga waxaa fadhiya xareed oo ku magac dheer xogsade ama xoogsade hadba sida aad u taqaanaan halka aad naga daawanaysaana waa wadani Somali TV iyo xogsade xumaandiid official daawadayaal maanta iyo barnaamijka aan idin haynaa wuxuu ku saabsan yahay isla arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha qoyska oo uu inta badan diraaseeyo saaxiibkay xareed marka hore saaxiib mar labaad soo dhow wandhaha walaal waad mahadsantahay boqolkiiba boqol aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad barnaamij labaad oo dhaqan oo aad faa'iido badan runtii noo soo diyaariso xareedow inta badan waxaad caan ku tahay oo diraasaysaa arrimaha dhaqanka iyo Soomaalida khaasatan waxaad caan ku sii tahay inaad in badan ka hadasho arrimaha qoyska maxaad ku dooratay arrimaha qoyska inaad ka hadasho bismillaah horta marka koowaad intaana jawaabtaada aan u gudbin waxaan halkan ka salaamayaa asxaabta nagu xiran xogsada xumaandiid official bahdiisa iyo sidoo kale Somali TV wadani Somali TV sidoo kale waxaan halkan aan ka salaamayaa asxaabay u qaali ah gaar ahaan ninka la yiraahdo Cabdirashiid Maxamed Yuusuf oo xaqiiqatan in badan maartay dhiirigeliyay koowaad ah ninkaas oo ku magac dheer rashka bucul aad iyo aad rashka anoo kula salaamay rashka sidoo kale aan u salaamaya laakiin hablaha ku dhawdo bal miyadan cid ka salaamay way jiraan laakiin insha Allah waa kan damaan ku dari doonaa hadii rabbi raaliga noqdo ma santahay hadaan su'aasha aan guda galo ninka la yiraahdo Qaasim oo horta waxa weeyaan arrimahan waxaan ku doortay waxa weeyaan sabab jira awgood horta hadii arrimahan maartay qoyska in badan horta culimada ka hadasho nooga afdheer oo maartay ayagoo ku dabaqay diin iyo maartay dhaqanka nabiga kaleey salaatu wasalaam laakiin waxa jirta si kale oo maartay bulshadu inay wax ku fahmi karto aan xal u arkay si fiican taasoo ah dadka intooda badan waxa weeye social media ay aad ugu xiran yihiin si fiican waxyaabo badan oo culimada maartay aysan social media aysan keenin in maartay aan aniga isku dayo si fiican yaan horta xal u arkay sidaadan hadii waxa weeyaan waxa la yiri qoysan waa bulshasan saas way qoys sanin waa bulshasan that means hadii qoysku hagaago oo base-ka iyo xaafadda hagaagto waxa hagaagay bulshadii si wanaagsan sababtoo bulshadu waxay ka soo beerantaa ubad iyo qoys si wanaagsan si fiican waxa jirto kale marka oraah dhahaysay waxaad aragtay eed way arag ku tahay waxaad aragtay way arag ku tahay ha si fiican maadaama aan maartay arrimaha qoyska aan guda galay oo aniga aan wax ka soo arkay meelaha maartay ay wax ka jilicsan yihiin ama maartay in laga hadlo u baahan yaan wax badan maartay daraasadan ku soo sameeyay si fiican saasna maartay ay ugu dhalisay inaan bulshada inta arinta ayada ay ka maqan tahay inaan la wadaago intaadan taa ka bixin inta badan reeraha waxaa jira qaar burbura iyo qaar ilaahay dhidibada u aaso intaba markasta oo furniinku batana de qoysaskii dib dhac baa bulshadii ku imanaysa maxaa sabab u ah baad isleedahay qoysaska inta badan burbura waxaa sabab u ah awalan horta waxa weeye labada qof oo inta badan markay is dooranayaan aan isku dooran rabitaan si rasmi ah ku yimid si fiican waayadan dambe guurka Soomaalida wuxuu noqday inta badan in dan lagu dabaqo guurkii si fiican oo ma garanaysaa intooda badan guurku waxa weeye waayadan dambe waxaaba si gaar ah oo maartay xoog loogu saaraa waxay tahay arrimo la yiraahdo hebel buu sameeyay si fiican gabadhu haday saaxiibteed guursato ayadoon u meeldayin guurka maartay ilmaha aabahood ayadoon u meeldayin si fiican inay gabadhi tiraahdo hebelaba guursatay adiguna maartay sidoo kale guurso waa halka maartay hinaas uu ka imaado sax ayadoon u meeldayin maartay mid maartay hadii ninka saana waxa weeye inuu gabadh guursado uu iska jecel yahay si fiican saalaashigeed marka ayadoon loo meeldayin inuu guurkii tafli iskaga yiraahdo hadii labada qof oo bini aadamka hadii banaanka ay wax badan isku soo daraasayeen oo qofka kale waxa uu ku guursanayo oo asaga maartay uu soo qiimeeyay si fiican waxa u badan tahay reerkaas inuu ahaado mid taagan oo dibadu waa asma oo maartay heer mustaqbal si fiican si fiican laakiin wixii ku soo booday markay noqoto xaqiiqatan inta badan waxa yimaado burburka iyo maartay waxyaabaha hadda Soomaalida ku soo badanaya sanadka dambe sidoo kale waxa jirta waxyaabaha waayadan dambe ee aad u furniinka ugu sii badnaanay waxa kamid ah waxaan la yiraahdo social media
teknolojigan cusub ee maaragtay social mediaha xaqiiqatan bulshada aad iyo aad u maaragtay wuxuu ugu geystay dhibaato aad u fara badan si fiican waxaa jirta isdabagal in la sameeyo awal haddii waxuu ahaa guurku markii labada qof ay isqabaan ninka asagoo nabad qabo magaaladiisa aadayay asagoo nabad qabana waa ka imaanayay si fiican laakiin hadda waxay noqotay in ma garanaysaa ninkii haddii uu magaalada aado ay u muuqataba in uu maaragtay meel uu saasaawo tago meel ka balansan yahay si fiican 24 saac la waco la yiraahdo lambarkaagii waa mashquul maxay ku dhacday sidoo kale asagiina gabadhii markuu soo waco lambarkeeda waa mashquul gabadhu ehel bay leedahay aab bay leedahay hooyay leedahay ma ahan marka in qofkaas maaragtay aad maaragtay xornimada ka qaado marka in badan waa xal isku fiirsadaa telefoonkaaga ii dhib baasweerkan fur qadka maxaad daay ugu jirtay yaad la hadlaysay waxyaabahaas ayaga marka waxaa weeye miyaan la dhihi karin taaqudhooda waxay qayb ka tahay inaan la isku kalsoonayn aad iyo aad kalsooni darrada waxaa keenayana waxaa weeye waxaan hadda aan isticmaalno social media la yiraahdo waa qaab tuugaysa loo isticmaalaa sax waa dareemi kartaa waxa weeyaan adigu Facebook baad leedahay sidoo kale WhatsApp baad isticmaashaa telefoon baad leedahay password gaar ah kugu xiran markay ku tiraahdo ayada telefoonkaaga fur waxa meesha ka imaanaya maxaad ka rabtaa furitaankiisa sax ma haddaad u furto maxaad qarinaysaa waxaad qarinaysaa wax badan oo barayfada meesha ku jiro sax marka wax qof kastana wax asaga oo barayfadka ah inuu qof kale ogaado waa wax aad iyo aad looga fiican yahay marka dhibaatada ugu badan ee furniinka maanta sababayso ayadoo awalan guurkii la isguursanayo uu yahay mid kusoo booday ah iyo sidoo kale in haddana maaragtay la isdabagal qofba qof kale uu dabagal ku hayo social media inta badan maaragtay uu dhibaato fara badan kusoo kordhiyey si fiican aad baad mahadsan tahay xareedow ma la odhan karaa Soomaali markii qurbaha gashay dhaqamo fara badan aragtay reer galbeedka iyo ummado badan dhex gashay dhaqamadaas saameyn ku yeeshay taasaa burburka qoysaska saameyntooda intooda badan lama la dhihi karaa gabi ahaanaba reer galbeedku maxay saameyn inagu yeesheen iyo dhaqamadooda aad iyo aad horta soo waxaa weeye reer galbeedku meel kasta naga soo weerareen diintii bay naga soo weerareen dhaqankii bay naga soo weerareen deegaankii bay naga soo weerareen ayagoo saas ay tahay meel kasta naga sii weerareen haddana bulsho ahaantanada waxa weeye laba meelood bay si gaar ah noo sii weerareen iyo maarta noo sii weerareen labada ayaga waxa weeyaan midna waxa weeyaan dumarkiiba waxay ka soo weerareen dhanka ma garanaysaa style-ka iyo labiska sax raggana waxay ka soo weerareen reer galbeedku waxa la yiraahdo romance inta badan waxaad arkaysaa nin raga oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu rajul ka dhigay oo xaaskiisii ma garanaysaa meel inta la soo fariisto wixii loogu talagalay in maaragtay ay qarsadaan oo serious ka u ahaa oo maaragtay ay guri u sameysteen ilaa waxa weeye anagu xoolo ma nihin oo waxa weeye banaankaas la iskuma maaragtay wadwato waxa guriga albaabka loogu soo xirayo waxa weeye waxyaabaha barayfadka labada qof oo Ilaahay iskugu talagalay inay meeshooda wixii cawrada ahaa ee dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ku qaldanaa in maaragtay banaanka la soo fariisto oo maaragtay badana waad aragtay bulshada inteeda badan waxaad arkaysaa inay naag isqabo oo waxay ku kala joogaan iskula joogaan aysan ahayn mustaqbal iyo ayatiin dambe aysan ahayn iskula joogaan dan gaara sax salaantuna waxay leedahay fi baalki waxa la yiraahdo YouTube ninkuna wuxuu leeyahay YouTube sax wixii marka loogu talagalay meeshaas gudaha oo gurigaas in maaragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo ugu talagalay in lagu sameeyo yaa banaanka la soo fariisanaya 24 saac si fiyus lagu helo waxa dhaqaale looga sameeyo si fiican taasna waxa weeyaan waxa u sabab ah ragga صح inta badan ragga waxa weeyaan islaanta adigu aad qabto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku baneeyay wixii adiga aad kula taliso wanaagga qaadata صح haddii adigu qof xun aad tahayna wixii xumaan oo aad kula taliso iyo kula qaadanaysaa leena laba qof waxa weeye waxa la yiri dariskaaga diintiisa qaadataa صح tan daris waaba ka sokaysaaba waxa weeye qof aad isla nooshiin wixii adiga aad tan baad qaadanaysaa صح marka waxaan leeyahay raggu maaragtay ha kala saareen public iyo private waxa la yiraahdo oo gabdhaha social media maaragtay lagu dhex wado 24 saac waxaad arkaysaa nin islaantiisa isqabo oo maaragtay wixii guriga loogu talagalay banaanka la soo fariisanayo صح taasna wax aad u falxun laba qof oo ka soo isqabto oo social media soo dhex fariisatana fashil bay ku dhameeyaan sida qaalibka in badan oo hadda maaragtay magacooda halkaan aan ka sheegaynin yaa sida ayda maaragtay ayaa casharada laga bartay si fiican sidoo kale dhanka kale ee dumarka inaga saameeyeen oo xagga style-ka ah sida ogtahay gabdhaha Soomaaliyeed ayagoo muslimiin ah oo diintoodii haysto iyo maaragtay waxay qaateen labiskii reer galbeedka صح gabar kastaana waxaan leeyahay waxa sharaf ku leedahay diintaada iyo dhaqankaaga si fiican nin kasta wuxuu rabaa gabar xijaaban oo asturan oo dharkeeda maaragtay uu
iyo oo sidii ilaahay ugu talagalay maaragtay u qaadatay xijaabkeeda oo diintii maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay noogu soo dhiibay wadadeeda qaado iyo horta ninkaas rabaa kan muqaadaraadka isticmaalayo kan maaragtay daroogeystaha kan ciyaar suuqa dhammaantood waxay ka sameeyeen yihiin ninkasta inuu rabo gabar wanaagsan dhaqan ahaan iyo diin ahaan aad iyo aad si fiican marka halkan waxaan fariin uga dirayaa gaaban gabdhaha naga Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay xaqiiqatan arintan ayada hadii aad daraasaysan waxa weeye waad ka mira dhalin doontaan gabar kasta waxa weeyaan waxa lagu rabo waa sharafteeda si fiican marka waxaan leeyahay gabdhow is astura oo iska daaya waxyaabaha maaragtay aad sameynaysan ee social media aad ku soo fidinaysan aad iyo aad u mahadsan tahay si fiican baad noogu faahfaahisay runtii sababaha reeraha burburkooda inta badan soo dedejiya dhan kastaba ha ka timaado dhowr siyaabo qurux badan waad noogu fasirtay maxaad dhihi lahayd sometime inta badan caruuraha dhaqamadan meediyaha reeraha isticmaala ama reer galbeedka dhaqamadan aad la soo waariday ubadka ku dhasha iyo ubadkii hore ee guriga ku dhalan jiray ee markay dhashaan dhaqankooda ku kori jiray quraanka la bari jiray malxamada la geyn jiray labadan caruurood maadaama ay qoyska laf dhabarkiisu ubadka yahay labadan caruurood isbarbar dhig yar ku samee adrale ku sameeyay maasima horta waxaa jirto cunuga meel uu ku dhashabo abaabintiisa iyo dhaqan toosintiisa horta waxay ku xiran tahay hooyada iyo aabaha ilmo kasta oo wanaagsan waxa weeye asagoo wanaag iskuma maaragtay iskama keenin waxa weeyaan waxa keenaya waxay yihiin waalidiinta waxaad arkaysaa ilmo ku dhashay qurbaha oo waligood aan Soomaaliya aan iman oo hooyadood iyo aabahood ayagoo yar yar inay tagaan laga yaabo ka dambana meesha intii isu guursan ubad meesha ku dhalay si fiican oo inta badan maaragtay annagii oo wadankanagi joogna nala wadaagayo suugaantii Soomaalida iyo dhaqankii iyo hidihi iyo maaragtay sharaftii maaragtay aan lahayn si fiican marka waxaan leeyahay ilmaha maaragtay qurbaha ku dhalanayo ayaga laftooda maaragtay laba qaybood qayb maaragtay la taliya fiican iyo waalid fiican heshay iyo qayb maaragtay hooyadood iyo aabahood maaragtay dhaqankii maaragtay meesha ay joogan yeeshay marka labada caruurood in badan oo waxa jirto maaragtay qurba ku dhashay kuwii wadanka ku dhashay oo kuwii qurbaha ku dhashay fiican qof kasta marka waxa weeyaan ilmaha wuxuu maaragtay ka soo waxayna tusaysaa labada qoyska waa tusaale fiican oo ah ilmahan qurbaha ku dhashay qoys fiican inuu ka soo kacay cunug iyo dhaqan ahaan ka wanaagsan cunug kasta marka waxa weeyaan waxa uu banaanka la yimaado waa wixii hooyadii iyo aabihii ay ku soo abaabiyaan si fiican marka lama dhihi karo qurbihii kii ku dhashay iyo kii wadankii ku dhashay waa dhalashadaas kaliya maaragtay ku kala fiican yihiin wax la dhihi kara maahan aad iyo aad baad mahadsan tahay ma ku sii dheeraanayno barnaamijkeena oo gabagabadiiba iskaga sii siqayaa fariinta ugu dambaysa ee aad daawadayaasha u dirayso aad iyo aad waxaa jirta qaasimow waxa la yiraahdo waayo aragnimadu waa intaad aragtay ogsoonow inaad tahay aftaan qof kasta haddii uu istashkiiliyo oo asaga maaragtay naftiisa uu soo tarbiyeeyo daraasaynta uu maaragtay qofka asagoo iska soo bilaabo waxa uu noqonayaa qofkaas asaga qof bulshada inteeda kale wax u gudbin karo ee loo maaragtay la sheergareyn karo waxyaabaha jiro si fiican qof kasta marka waxaan kula tali lahaa bani aadam ah laba iyo dhadig midku yahayba in horta qofku sideedaba أولاً ودراسية أصلا دقن كيسية وناق كيسية مارتها واحد هرتسيد وقفكان وأصلا شرف كليه. سفيعا. مركي وأصلا دراسية وأصلا وإسوس صاروا. كبعد واحد لو بهني قفك أصلا وحي أصلا مارتها لو جود بنادى وناقة إن ما قرنا يساي وبرشاد أنت هذا كله. سن اللوذا. واللوذا جو. سفيعا. سدوا كله وحاجرته وحيابها حمان تعدد كسو جود بناية. قف مجره وحق وسمينايه إنه حيهين. لكن قف كستا وحق وسمينايه وحق وسميه inay fiican yihiin oo asagu uu kuma yahay sax sida la sheegay marka qof kasto waxa soo bandhigayso marka hore adiga waxaad ku sameeysaa daraasad qiime waxaan maxay noqon karaan intaada bulshada la dhex tagin marka sidaas darteed marka waxaan leeyahay qof kasto adigu intaadan wax banaanka keenin marka hore qiime sax waxa aad soo gudbinaysana maartay waxaadeena wax ku salaysan dhaqanka iyo diinta islaamka qof walba naftaada adigu miisaan saar qiime qiimahaas waxa ku soo baxay ee wanaagsan ee nadiifana bulshada dhexkeen si wanaagsan aad iyo aad baad mahadsan tahay saaxiibkay xareed oo iga qayb qaadanaya barnaamijkan aanu ku eegaynay dhinaca iyo inta badan uu daraaseeyo oo ah arrimaha qoyska intaynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono dhammaantiin waxaan kaga tagaynaa fi amaanillah